وعنا ونكسنا غيرت قيمة يقدرن تأنا يوم ذا مركل يهم الميديا وحدين سو قد بندونا مقال آد وحساب بدن وكهل دونا قوانين تكجرة ودمنا خارع عالم برنامج كنا نقضونا امتحانه وحنا إنه وهر عندنا كوريا دوخوي balse haddii aad uga cusub taariikh channelka subscribe si muuqaaladana dambe aad u hesho kuuriyada waqooyi ayaa ah dowladda ugu badan ee qawaaniinta la yaabka leh ee qofna xaq uma laha inuu tintiisa sida uu doono oo u jirto waxaa timaha u goosan kartaa sida sharciga ah oo xukuumaddu oo ogoshahay oo qura cid kale gaari ma yeelan karto qof shaqaale dowladeed ah amaba ciidanka dowladda u shaqeeyo maahane haddii uu shakhsi dembi galo qoyskiisa oo dhan ayaa u qoolan ciqaabtana la qaybsanaya waxaa la ogol yahay 3 telefishin oo kaliya oo ku hadla codka xukuumadda riwaayad kasta iyo hees kasta oo aan ammaan dowladeed ku jirin lama ogola ciddii soo qaban qaabisana arrinkaa waa lagu maxkamadeynayaa internetka lama ogolo waa mamnuuc sida uu qaanuunku ogol yahay waxaa adeegsan kara oo kaliya ciidanka iyo qoysaskooda iyo ardayda dhigata jaamacado gooni ah oo si gaar ah loo soo xulay qalabka kombiyuutarka kuuriyada waqooyi kuma shaqeeyaan nidaamka Windows-yada ku shaqeeyaan kombiyuutarada caadiga ah oo aan adeegsano waxayse ku shaqeeyaan nidaam ay kuuriyadu iyadu samaysay oo u gaar ah loona yaqaano Red Star Korea qofka dalxiiska ah ee booqda kuuriyada waqooyi waxaa la raacinayaa shaqaale dowladeed oo tallaabo ula soconaya kolba waxa uu qabanayo haddii uu xitaa doonayo inuu sawir selfie ah iska qaado waa inuu kala tashadaa qofka la soo raaciyay muwaadinka u dhashay kuuriyada waqooyi taleefan dibadda ah kuma hadli karo isagoon ogolaanshiyo ka haysan xukuumadda dalkiisa haddii kale waxa uu la kulmi karaa dil sida qabsatay dadka qaar oo naftooda ku waayay arrinkan ugu dambeyn muwaadinka u dhashay kuuriyada waqooyi looma ogola inuu u dhoofo dibadda haddii lagu qabto isagoo si dhuumasho ah u socdo waa la xirayaa isla markaana waxa uu wajahayaa xukun dil ah